السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baa idin salaamaya maanta reaction baan bixinaya gabadh cadaan ee la yiraahdo magaceeda Sonorita oo joogta wadanka Mareykanka reaction ka bixisay heesta ay wada qaadayaan Deeqsan Cabdinaasir iyo Sharma Boy. heestaas oo 1.3 milyan qof yani views heshay oo iyaduna ka bixisay reaction. marka gabadha cadaanka iyada naftarkeeda reaction ka bixin doona aniguna marka reaction dulugay weeyaan. Which has so many views has been requested for a while, so be honest, I really don't know anything about it. I've never heard anything about the singer or the song, so I feel very deficient about it. Seriously, 1,205 million views, that's huge, and it's weird that I've never came across it. Anyway, that's about the change, because right now I'm going to watch Last This Song, and it's sung by Sharma Boy FT Deeqsan Abdinaasir. Alright, I talk too much, so I'll be doubtful to do. Let's watch the video. صح رزاقة الإلهي واسع شرما بوي Deeqsan عد on the beat وصح قلبك سيدتا صح 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 وصح ودنا تسرنتا وصح صح صح سينبك ما هريكر وصح صح 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 يا قلد وانكو جعلها صح 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 وصح قلبك سيدتا سيدي عالم hadaba waxaan eegi doonaa gabadhan cadaanka Sonorita yani reactionkeedii ay ka bixisay heestan Deeqsan Cabdinaasir iyo Sharma Boy. yani dareenkeedu ahaa aad bay ku faraxsantay, weliba markay heestu marayso leedahay wadnahaad ku sidata waxaad moodaa inay dhoola cadeynayso oo faraxsan tahay Sonorita. marka walaan eegno تسرنتا صح 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 سينبك ما هريكر وصح sad idiin muuqataa waxaad u malaynayseen commentiga hoosta ka bixiya bal idinkuna aad baa idin salaamaya subscribe like share page channelkaygana aad baa idin salaamaya waana ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen channelkayga. thank you so much baa idin leeyahay. qaybta dambena la socda reactionada badan vlogs baa soo socda intaas baa insha Allah tacaala aad baa idin salaamaya.